waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubaal News qodobada wararka daawa doontaana waxaa kamid ah madaxtooyada oo shaacisay inay rajo ka qabto ku biirista Soomaaliya ee dalada Bariga Afrika xiisad culus waxa ay ka dhex jirtaa Galmudug iyo Hirshabelle xilli digniin adag laga diray xaaladda magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Boqol si la yaab leh ayuu kaga hadlay weerarkii Al-Shabaab eedeyn culus ayuuna u jeediyay booliska haddaba muxuu ka dhigan yahay duulaanka Al-Shabaab ee Itoobiya qodobadaana waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka Hubaal News fadlan daawade dadku cusubta janalkan qayb ka noqo saaxiibada ku xiran ee ka hela wararka joogtada ah laabaan halkan ku baahino aragtidiina qaybta hoose nogula wadaaga muuqaalkana la sii wadaaga asxaabtiina laagtiina waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhameystiran madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Caruusha ee dalka Tanzania halkaas oo uga qayb galay shirka dalalka ku mideysan dalada Bariga Afrika Soomaaliya ayaa la sheegay inay dhowr jeer oo hore ay codsatay ku biirista daladan balse wali taasi ma suurtagelin haddaba intee ay la eg tahay rajada laga qabo in Soomaaliya loo ogolaado ka mid noqoshada daladan afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa waxa uu sheegay in rajada ay aad u wanaagsan tahay calamadii surnaa goobta kan Soomaaliya uu ku jiray madaxweynaha markii uu codsiga gudbinayay waxa uu kula kaftamay madaxweynayaashii kale in calanka Soomaaliya uu halkaasi ka sii taagnaado ayuu yiri Cabdikariin dhanka kale madaxweynaha ayaa yiri aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta arko calankii Soomaaliyeed oo ka dhinac babanaya calamada dalalka ku boobay daladan waxaan rajeynayaa inuu sidaasi ahaado sanadaha soo socda Soomaaliya waa dal aad u hodan ah waxaanu leenahay kheyraad macdan xoolo iyo beero intaas waxa ka muhiimsan inaanu leenahay bulsho firfircoon oo ganacsiga ku fiican ayaana kamid ah khudbadii uu jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba waxa la filayaa in Soomaaliya codsigan laga aqbalo waxaana la tilmaamaa in codsigan ay Soomaaliya gudbisay sanadkii 2016 xilli dhamaadkii madaxtinimada madaxweynaha hadda dib u soo laabtay ee Xasan Sheekh Maxamuud geesta kalena maamulka Hirshabelle ayaa digniin adag u diray Galmudug gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa digniin culus u diray maamul goboleedka Galmudug kadib khudbad uu jeedinayay dadka shacabka ee ku nool degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Cali Jeete ayaa sheegay in degmada Matabaan ay hoos tagto Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan wuxuuna dadka degan ku eedeeyay inaysan isweydiin halka ay ku jirto maslaxadooda si ay uga baxaan dhibaatada haysata gudoomiyaha ayaa sheegay in dadka reer Matabaan maslaxadooda dhinaca siyaasadda amniga iyo arrimaha bulshaduba ay ku jirto la shaqeynta maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabelle Jeete ayaa maamulka Galmudug ka dalbaday in ay faragelinta ka daayaan degmada Matabaan isagoo si cad u sheegay in dadka reer Hiiraan iyo kuwa Galmudug ay yihiin kuwa walaala wuxuuna sheegay in looga baahan yahay inay faraha kala baxaan arrimaha degmadaasi degmada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa maamul ahaan ee hoos tagaysay maamulka Galmudug hase yeeshee dhawaan waxa maamul cusub u magacaabay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan gudoomiyaha ayaana degmadaasi geeyay ciidamo iyo maamul iswata waxaana si rasmi ah xilka ula wareegay maamulka cusub Matabaan ama Matabaan Garoore waa degmo ku taala dhanka waqooyi ee gobolka Hiiraan una jirta 75 kilomitir magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolkaasi Hiiraan Matabaan waa magaalo taariikh dheer leh waxaana la aasaasay dhamaadka qarnigii 19aad sida laga soo xigto magaaladan waxaa aasaasay Macalin Cumar Sheekh Xasan Cade Faqa Cumar iyo wiilashiisa Sheekh Cali Sheekh Maxamed iyo Macalin Aadan bulshada magaalada ku nool waxay tira ahaan gaarayaan 20,000 oo qofood bulsho 20,000 oo kaliya kuma eke oo waxa magaalada ku xiran oo mar walba yimaada bulshooyinka degan tuulooyinka ku dhow magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan dhanka kalena gudoomiyaha gobolka Boqol si la yaab leh ayuu kaga hadlay weerarkii Al-Shabaab ee gobolkaasi ciidanka liyu booliskana wuxuu ku eedeeyay in dad shacab ah xasuuqeen gudoomiyaha gobolka Boqol Maxamed Cabdi Tool ayaa markii ugu horeysay si la yaab leh uga hadlay weeraradii Al-Shabaab iyo ciidanka liyu booliska kaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha
ayaa sheegay in ka maamul ahaan aysan ka warqabin weerarka al-shabaab ee ku qaadeen deegaanada yeed iyo caato ee gobolka afdheer ee dowlad deegaanka soomaalida. sidoo kale waxa uu ku eedeeyay ciidamada liyu booliska inay dileen dad shacaba oo ku sugnaa goboladaasi, gaar ahaan deegaanada xiga dhanka xadka dowlad deegaanka soomaalida. dadka rayidka ayaa la dilay kadib markii ay ugu tageen guryahooda iyaga oo si gaara u beegsaday dadkaas oo rayid ahaa, ayuu yiri. dhibka ka dhacay dowlad deegaanka waa mid dhibaato badan u geysatay dadka. abaabulka weerarkaasi ma ahan mid ka yimid gobolka Boqol. dadka waxa ay iskugu jiraan kuwa ku jira al-shabaab oo NLF iyo dad kale. ciidamada liyu booliska ayaana dhibaato u geystay dad ka soo barakacay abaarta, ayuu yiri. maxamed tool ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay in mid ka dhana wada shaqeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed, gaar ahaan maamulka gobolka Boqol iyo dowlad deegaanka soomaalida oo uu ka dhaxeeyay iskaashi dhinaca amniga, siyaasadda iyo isku gudbidda ganacsiga. dadka deegaanka degan al-shabaab way ku jiraan, dad wanaagsanna waa ay ka mid yihiin. arrinta dhacday aad iyo aad ayaan uga xunnahnay, waxayna ahayd inaan wadajir u qabanno oo aan iska kaashano howlgallada ka dhanka dadka la dhibaateeyey. waxaa ka mid a kuwa 15 sano go'doon u galay shabaab balse ay dhibaateeyeen liyu booliska, ayuu yiri. waxaan dowladda federaalka, koonfur galbeed iyo dowlad deegaankaba ka rabnaa in wax laga qabto arrintan oo laga hortago culeyska la saaray shacabka, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. si kastaba al-shabaab ayaa weerartay xeryaha ciidanka liyu booliska ee degmooyinka yeed iyo caato, taas oo uu ka dhashay khasaaro baaxad leh, iyadoo dhinacyaduna ay ka sheegteen guulo. haddaba muxuu ka dhigan yahay duulaankan al-shabaab ee Itoobiya gudihiisa ku qaadeen? cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka ee geeska Afrika ayaa ka hadlay weerarkii dhowaan kooxda al-shabaab ee ku ekeeyeen xeryaha ciidanka liyu booliska ee degmooyinka yeed iyo caato. cabdiraxmaan ayaana sheegay in weerarkaasi uu ka dhigan yahay mid ay al-shabaab ku muujinayso awoodeeda iyo inay weli ay qaadi karto weeraro baaxad leh xilli ay dowladda qorsheynayso dagaal ka dhana kooxdaas. waxaa laga qaadanayaa in ururkan ay ku jireen diyaar garow ballaaran oo dhan kasta uuna kobac ku yimid awoodooda ciidan iyo tii kale ee dhaqaalaba. waxay ka dhigan tahay inay fuliyeen waxay sheegi jireen ee ahaa inay si ficil ah ugu faafinayaan fikirkooda bariga Afrika iyo geeska Afrikaba, ayuu yiri. sirtu waxay tahay 5 sano ee ugu dambeysay nimankan kabacooda kor ayuu u socday. waxay ka faa'iideysteen inay dhaqaale badan helaan, waxay heleen fursad runtii keenaysa in laftooda ay isku diyaariyaan qaab dowladnimo. sidoo kalena waxa uu sheegay in weerarkan ay uga faa'iideysanayaan si ay u muujiyaan awoodooda ka hor inta aysan dowladda ka dhabeen qorshaheeda ka dhanka ah, xilli ay ciidamo tiro badani kusoo wajahayihiin dalka. waxa ay muuqda in rabitaankii iyo go-aankii uu muuqday in ciidamadii la diyaariyey oo ay weliba jiraan wadamo fara badan oo garab istaagi kara xukuumadan cusub. intaasba waxay u baahan tahay in loo helo dhaqaalaheeda iyo in istiraatiijiyad cad dejiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka, ayuu yiri falanqeeyahan. si kastaba arrimahan ayaa imaanaya xilli weli xiisad xoogan laga dareemayo deegaanada dhaca xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaas oo saacadii aanu kasoo gudubnay dagaalo khasaare badan ee dhaliyay ku dhexmaray kooxda al-shabaab iyo ciidanka liyu booliska. maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaana si weyn u soo abaabuleen ciidamo badan, kuwaas oo haatan howlgalo ka wada dhanka xadka. waxaana la tilmaamayaa inay baadigoobayaan kooxdii weerar ka soo qaaday al-shabaab ka tirsaneed. guud ahaan daawadayaal wanaga intaa warkii oo aad kala socoteen channelka Hubal News. fadlan daawade hadaad ku cusubtahay channelkan qayb ka noqo saaxiibada ku xiran, aragtidiinana halka oo noogu reeba, muuqaalkana la sii wadaaga asxaabtiina, laagtiinana waa inoo dhiirigelin. waana ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka channelka Hubal News.